السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا السود وهذا الروح حاجته أو كبر ولا السود يبتي أو قصة بصن إنه يرى جروب وقت جنجته ولا قبر الدراجة ولا يعلو وحول الله يعبو واي قربها دباتها كالصعطة especially North America قبل أصلاش في حيل السوداء تبعون جدي إن رير درس وقت جنجته ريرها درس كان إليجته marka ilmaha baska ka soo daga hal saac ayaa noo dhaxaysa shaqadii aniga walaalayaal ilmaha ii fiiriya wiilka baska markuu ka soo dago haliilkiisii joogo inta imaanay shaqada ka soo socdo reerku waxay leeyihiin Soomaalidu isu haysta ilmaha waayahay ku dhaheen hooyada ilmaha dhashay nafteeda hooyo single mother ah tan looga tagay ilmaha shaqay aadi jirtay marka cunuga yar guriga looga tagi jiray marka ilmihii markay salaan ilmaha marka gabadhan ilmaha uga taganayso gabadh ilmaheeda mid weyn ku jiro high school dhigto oo balwadi yaqaanin midkii ay maalin walba gabadhan markii ilmaha markuu baska ka soo degtay gurigaas tagi jiray gurigaas joogi jiray kadibna cunuga balwada sidii uu bartay waxa baray kan kale oo looga tagi jiray guriga waa laba gabdhood oo single mother isma dhaamin tan kalena wuxuu ku bartay cunugeeda hooyo maqan ahayd oo shaqo aado markay shaqada aad ay cunug cadaan cunuga kala saaxiib la noqday cunuga cadaanka balwada baray kadibna hooyana kale ma ogeyn cunugu intuu jire baska markuu ka soo degtay uga tagan jirtay cunuga around 12 sano xoogaa jira markii dambe 12 sano noqday uu tiri kadib wuxuu bartay tiri waxaa la yiraahdaa marwaanada xashiishada marwaanada bartay isagoo maalmaha kamid ah waxaa arkay tiri cunugeega aad lacag u raadinayo isbedelayo cunugeega lacag meel markaa dhigtay lacagtii aan waayayo aad u yaabay cunugeega wax qaad ma aqoon maxaa ku dhacay markii cunuga aan daba galay waxaan ogaaday inuu balwad bartay markaan weydiiyo ku dhaxgay balwadan ku bartay hooyo guriga ay iiga tagi jirtay wiilal ayaa imaan jiray bahashaan ay keeni jireen bahashaan sigaarka camal isla nuugi jirnay inuu cabi jiray waxay ugu bilaabeen inay dhimale jiid horta test karay fiir maalintii ugu horeysay oo kuma tago hore ku qufacay kadib markii dambe waa iskala barto waa la cabi jiray saas u bartay marka walaalayaal waa iga talwaan iga waano ilmaha guryaha uga taganaysan ogaada because xaafada uga taganaysan laga yaabo sida reer gabadhan ku dhacdo kale inuu cunug hooyadaas iyadoo nafteeda balwad ka bartay ilmuhu markuu waarid guriga joogin most of them ciyaalka iskuulka dhana xaafada ku soo xanoonayo waxyaalo badan ay baranayaan balwad badan ay baranayaan tuugnimo ay baranayaan xataa wax laga yaabo waxbarashada inay ka saaqidaan marka waaridka waxa ku dhiirigelinaya in cunugaaga guriga aad geynayso haftino inaad ogaatid inaad ka warqabtid meel kasta cunugaaga iska geynin waayo wuxuu gurigaas maaragtay uu yahay kama warqabtid ilmahaas waxay ku sugan yihiin kama warqabtid marka guriyaha ilmaha lagu daro barkareena ama la dhahay ii fiiriya Soomaaliya ogaada aad ilmuhu waxay wax ku bartaan waxyaalahaas u badan yihiin hal iska ilaaliyo hana la digtoonaado cunugaaga xaafad marka uga taganaysa xaafad fiican inay tahay ciyaalkooda ciyaal wanaagsan inay yihiin ina ogaatid waay marka adikana duruuf ah in hayso inay cudurdaara ka sooyo single mother ma dhihi karo maxay cunugeeda maarta inta u tuurto shaqo u aad ma dhihi karo because North America waa meel laga shaqeysto meel ceyr la qaato maahan hooyada ku qasbantay inay soo xamaasho because rent iyo food ilmi life-kooda laga rabaa haduusan aaba la soconin booska aabaha iyo hooyada iyada galeyso waa inuu America ceyr la siiyo gabdhaha waaridka oo single motherada hooyooyinka aad u dhiban yihiin oo daarayna laakiin iska ogaada maaragtay ilmahaaga guriga aad geynaysid waa inaad ka warqabtaa waana inaad ogtahay waayo adduunku isbedelay ciyaalkuna markay cidlo arkaan oo isan waarid meesha guriga uusan joogin waxay doonaan sameynayaan ciyaal saaqadiin ay baranayaan balwaday baranayaan wax kasta dhici karo marka walaalaha intaas ku soo koobaya keer ka taxadar ilmihiina marka meel geenaysan xafada aad geynaysid waa inaad ka warqabtaa waa inaad wax badan oo formation ka ogtaa ilmaas inuu fiican inay guriga aad geynaysid guri fiican inuu guri safety yahay inta waa inaad ogaataan marka intaas inuu dhiirigelinaya gabar walaalahan ila soo socodsiisa arintaas inta kale ee walaalahan inay ka faa'iideystaan qurbaha jooga ayaan maaragtay
ugu digayaa marka wixii aan khaldan iyo raalli ahaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك شير كومنت سبسكرايب انت بإيسار ولا شي نعيم وإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.